Soomaaliya walaalayaal dhammaan waxaan idinka codsanayaa meel kasto aad ku nooshihiin dal iyo dibad intaba inaad ii hiilisaan madaxweyne maadoo madaxweyne qabiilan ku hiilinaa maadoo qaad walaaban ku hiilinaa ma adigi shayna lahaa haddii aan ku rooyay 5,000 oo ciidanka maanta hor taagan tahay waa la gatay haban ku hiilinaa ma adoo qoyskaaga ku tahay inta meelood ee dhandhanaanka iyo khumkhum kale dhaqaaluhu ka soo galaan Soomaaliya adoo caruurtaadii gabdhahaagi wiilashaadii islaamahaagi fariisiyay aad qabtay miyaan ku hiilinaa madaxweyne Soomaaliyeed kugu hiilinaa madaxweyne waxaan ku hiilin karnaa markaan ka aragno madaxweyne cadaalad oo madaxweyne Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh qubnaha waahilgani qubnaha galabta waxaan ku dul istaagi doonaa odaygii xasan sheekh maxamuud ah waa xasan socdaale oo habeen hore khudbad yar oo qeyra jabaanteeda iyo suuraheeda wadata ummadda u soo jeediya asagoo la halay hiiliyo habeenada ma dul istaagin odaga waa ka mashquulsanaa halkan kala saacana ku mashquulsanaa waa dul istaagi doonaa maanta waana ku yar dul hakan doonaa sidoo kale qubnaha waxaan ku dul istaagi doonaa dani qurux oo halka iyo boosaaso ay kaga dhigtay doorashan wadaaya santuuq subag iyo caana ku jiraan baan jiidanaya asagana ummadda waxaan rabaa inuu bidhaamayo dul istaago aan ku hormarsi xasan aan ku hormaro madaxweyne xasan oo suuroonaya isbihinbihinaya alla ninku hadal macaana alla xasan oo hadal macaanida afkaaga iyo uurkaaga yaa isku mid ka dhiga madaxweynihii ugu fiicnaa qarniga noqon lahayd xasan oo isbihinbihinaya wuxuu yiri sida tan buu yiri Soomaaliya walaalayaal dhammaan waxaan idinka codsanayaa meel kasto aad ku nooshihiin dal iyo dibad intaba inaad ii hiilisaan aniga oo ah madaxweyne shalay idinku aad doorateen oo aad iigu hiilisaan soo celinta karaamada sharafta aan muddada dheer ka oomanayn ee aan u hanqal taageen Soomaalidu waxay ka mid yihiin ummadaha dunida ugu karaamada badan ugu sharafta badan ugu heybada badan oo ilaahayna uu ku manaystay xaq diin ayaan ka midaysanahay xaq isir ayaan ka midaysanahay xaq af iyo dhaqan ayaan ka midaysanahay sabab mudane waa mahadsan tahay dhowr kalmaan rabaa inaan ku iraahdo xasanow ma waxaan ku hiiliyaa adoo qaad walaah xasanow ma waxaan ku hiilinaa adoo dalka iyo dadka xaraashaya xasanow ma waxaan ku hiilinaa oo aad nuugu suuroonaysaa adoo familigaaga inta u yeeray ileen reerkayga uu ii hiiliya maadan orane Soomaaliya ii hiiliya xasanow tii Soomaalidaasaan ka mid ahay inta anigu aan isku ra'yiga nahayna afkoodaan kugula hadlayaaye ma waxaan ku hiilinaa madaxweyne adoo dalka iyo dadka xaraashaya adigoo qaad walaah adoo dadka darooga ka iibinaya lacagteedana adigu jeebka gashanaya ma waxaan ku hiilinaa madaxweyne adoo haddii alla kuu roon yahay xaafadaadi iyo familigaagi ilaa islaamahaagi ilaa ayeeyooyinka iyo ilaa walaalaha dadka qandaraasyadooda mashaariicdii dalka iyo wax kasta iyo meeshii dhaqdhaqaaq iyo khumkhum laba adoo yiri ku fariista oo halkaan ee dhuuqa miyaan ku hiilinaa madaxweyne waa anaga Soomaaliya maaha anigu reer Sheekh Maxamuud maahay haddii ujeedkaagu ahaa reer Sheekh Maxamuud oo hiiliya de ayaga waxba tadhay hiilna waa ku leedahay waajib saaran weeye inay ku hiiliyaan reer Sheekh Maxamuud laakiin madaxweyne ilaahay baan kugu dhaashay halkaas ma liis baan halka ka tiri haddana waa ku tirinaya xasanow adoo qabyaalad haddii alla ku rooyahay musuq maasuq sida tan aan halkan ka yeerin doona ka miyaa ku hiilinaa madaxweyne bal waxaad hoos u fiirisaa qoyskaaga reer xasan sheekh maxamuud reer sheekh maxamuud waa walaalaha inta dhashay hoos waxa u fiirisaa inta meelood ee dhandhanaan iyo khumkhum leh ee ummadda aad ka qaaday ee ayaga ku fariisay hoos u fiiri waa dadkaas aad ka qaaday waa Soomaaliya la hiili xasanow madaxweyne jihaan xasan sheekh maxamuud
gabadhaada waxaad u xilsaanay wasiir hadduu meel aadayo ra'iisul wasaaraha dhihin adiga xasan ha dhihin wax allaale wixii dhaqdhaqaaqaya oo diyaar raaca qandaraaska in ayadu qaadato wixii kharash ku baxaya ayada ay soo maraan baa u xilsaan madaxweyne cabdiqani xasan sheekh maxamuud oo walaalkaaya oo hadda adiga walaalkaaya saamiga qaadka adigu aad lahayd bad gacanta u gelisay oo tiraalka ay dhuuq inaan diin cinda allah islaam xuseen sheekh maxamuud oo walaalkaaya waxaad gacanta u gelisay qandaraaska taarikada gaadiidka gacanta u gelisay oo tiraalkaas in nug baatri ilaahay baan kugu dhaarshay madaxweyne waa kula garnaqsanaya maanta cali sheekh maxamuud oo walaalkaa waxaad madaxweyne gacanta u gelisay qandaraaska shidaalka ciidanka gaari kasta askari gaari u istaarayo shidaalkiisu walaalkaaba soo mara adaana gacanta u geliyey madaxweyne ka roga laba saar sacre cumar oo adiga xaaskaaga waxaad qandaraas gacanta u gelisay fly dubai diyaaradda fly dubai la yiraahdo ajansiga Soomaaliya oo dhan baad gacanta u gelisay tiraalka ay dhuqbaatay madaxweyne qoodhaaya xirada qamar cumar cali waxaaskaaga labaad waxaad gacanta u gelisay al Arabiya Airline diyaaradda al Arabiya Airline baad gacanta u gelisay Saadiya Ali Sharif oo macnaha walaasha ayeeyo tahay waxaad ku xigeen oo dhigtay agaasimaha migration-da ku xigeen oo dhigtay madaxweyne ma adiga iyo reer Sheekh Maxamuud ku helina ma adoo diyaal ku reeyo ganacsatada ku helina ma adoo madaxweynaha iyaga ku helina ma adiga iyo cadaalad ka sugan ku helina ma adiga iyo qaranka noo xukuma ku helina mise adiga iyo reer Sheekh Maxamuud ku helina maxaan kugu helina madaxweyne maxaan kugu helina qodha xirada adigu Soomaali ma helis Soomaali ma helis hilku waa cadaalad hilku waa cadaalad hilku waa Soomaalinimada madaxweyne xasanow qeela jabaanta iga daa 4 sanaad meeshaas maandeed haysataa 5 sanaad maandeed haysataa 4 sano 4 maandeed haysataa isaga galgalo islaantaan halkan ku beekacsan dheh gabadhaada halkan ku galgalan dheh dabaqyadaadii iyo wadamadaada xalaash shalay waa ogeyd tripkaaga hore wixii aad u xalaashtay waa ogeyd wixii aad dabaqyadii baarka dhisatay waa ogeyd madaxweyne qeela jabaanta iga daa ciidanka aad shalay ka hor khudbaynaysay elatari laga keenay waa kuwii aad lahayd ciidankaani waa la gataan oran karaa isdhageyso madaxweyne dhageyso khudbadaadii dhageyso kaa hari mayso 5 sano oo ku daba soconaysa kelmadahaas dhageyso shalay qaar waxaa la yiri fursad la'aan iyo baagamuunde shaqo la'aan idin haysa shaqan idin geynayna waa la qaaday waa la xaabiyey Eritrea lagu shubay tababari ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waa lagu handay xalay ciidanka Eritrea imaanayo waa la dardara waa la xasuuqa ilaa waa niman dhalinyaro oo intan mageen ka baxay la qalday xaqana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaam kartaa adiga wax kale oo aniga ku tilmaam ma qaan dhalinyaradaas waa la iibsaday Eritrea la geeyay war iyo wacaal wax u haya male war soo duulay oo xaq ka soo duulay oo waa dhinteen oo Aksum ay ka dagaalameen oo xaqay tageen Makala lagu laayay iyo xaqay dhaceen iyo muxuu buuraa ay ka daateen oo qaran muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteen oo waa saano dawladii shalay 5 kun ay hor taagan tahay maanta ku faaraysa leedahay ciidan qurux badan walaalaha Eritrea aad ku haysi Eritrea uga mahad celin Eritrea ninkii geeyay dhaqaalaha maskaxda iyo kharash geliyay uga mahad celin ka toobadkeen oo Soomaaliya cafiyade dambiga shalay umada ka gashay ee aad ciyalkiini waa la gatay ee aad tiri waa la laayay ee aad tiri hadii la kuray waa la xasuuqay ee aad tiri Aksum iyo hadii la kuray meesha la dhul tikreer ka dagaal galeen weeshi shalay aad tiri waa kuwa maanta hor taagan tahay cafis weydiiso hadii in yar oo damiir iyo dadnimo kugu jirto madaxweyne in yar oo damiir kugu jirto madaxweynihii hore ee canjarafeyn jideen aad dhijideen wuu gatay wuu laayay wuu dhacay wuu birbireeyay ku hejideen عفس كدلبو سومالنا عفس ويديسو وهدي الدمير على الهوي انت ساكل يا حسن غير جبانتا ينوخ يا سوماليه اذا كويسين نغعن dadku waa ku yaqaana Soomaalinimada aanu ka aragna madaxweyne aanu ka aragno qadiyada Soomaalinimada wax ka aragno markaas aanu kugu heelinayna laakiin inta ganacsato tahay inta 7 bilood baad waxa ka samaysay qaadka Kenya 20 milyan ka samaysay oo adiga jeebkaaga khaaska ku dhacday Soomaali lacag taayta wax ka si ku heelisay
intaasaan ku leeyahay kugu sii fogaan maya madaxweynahaygii baa tahay waa kaa gudbaya waxaan u gudbayaa dani qurux aan u gudbaya idhagaysta soomaaliya idhagaysta maanta tiknikadii iyo hubkii dowladda Puntland ee 25 jirsatay waxay dhooban yihiin haddii la ku reebo Boosaaso haddana kuwa kale lagu sii wadaa horta aan isweydiine geedi caana leh waxa la yiraahdo horta maanta su'aal baan weydiinaya geedi caana leh waxa u baxshay juux iyo geedi subag leh iyo geedi timir leh iyo geedi bariis laba aan dhahnay horta yaa garanaya maanta wiil iyo gabar reer Puntland baa la hadlaya fariintayda isgaarsiiyay wariyaha ii sheegi kara maanta haddii la yiraahdo doorashada waaba la ogol yahay sanduuqyada noo kala bixiya haddii la yiraahdo ilaan dani cawaan ma ahay aqal lagana ma leh yaa ii sheegi kara ilaa min Boosaaso min Garowe sool iyo sanaag ba ku dar intay ka joogaan Puntland yaa ii sheegi kara qof inta warqad saacad duuba magaca Saciid Cabdullaahi Danina Tigsaara cod ugu ridaya Saciid Cabdullaahi sanduuq ridaya ma garanaysaa waad arkaysaan maanta ilaa qarmo Boosaaso hadhihin ilaa qarna ka bilow ilaa bari waxa mudaharaad ka dhacay waa arkaysay Garowe mudaharaadada ka dhacay waa arkaysay daniyow naga hor wareeg ama dagaalka galba lagu hay maanta hadduu sanduuq meel dhigo ma garanaysaan wiil iyo gabar ku doona ahaade qof inta warqad laalaaba ugu ridayo Saciid Cabdullaahi Danina maanta codeynay ma garanaysaan maya ma garanaysaan asaguna dabeer ma aha aqligana male wuu og yahay hal cod haddii la yiraahdo doorasho wan wafad hal ama 66 baas hal no artaad inuu san cod dani helayn oo wuxuu sameeyo og yahay qofku awaan ma laakiin horta muxuu ka rabaa ujeedada uu ka leeyahay maxay ujeedada uu ka leeyahay waxa weeye inuu daasadaha garaacdo in lacagtii UN-ka uu ku qaato UN-ka lacag laga qaadanaya wan wafad baan qabanaynaa inoo maalgeliya lacagtii UN-ka hadda markii Muqdisho ugu tagay waxay dhaheen lacag hadda kuma siinayna horta wax soo dhaqaaji daasadaha galalaha maarta buu rabaa inuu wan wafad nimanka horta qandaraas oo qaato UN-ka qandaraas oo qaato tan labaad oo uu rabo waxa weeye wax la yahay extension inuu ku darsado oo yiraahdo shaqa socotee laguma dhamaystiri kare 2 sano ayaa wax lagu qordubsi horta waa inta wuxuu raadinayay waa og yahay cid u codaynaysa saqiir iyo kabiir qof reer Puntland inuu jirin woogi Saciid waa og yahay haddii alla ku rooyahay meel uu maanta u baxsanaya inaysan jirin Saciid waxa kaliya rabaa waxa weeye ku darsi wax la yiraahdo ku darsigaas uu raadinaya ku darsigaas buu raadinaya iyo lacagta UN-ku rabaa inuu isku helo wuxuu rabaa lacagtii xamar kaga baabacday haddii alla ku rooyo doorashada ku galay ama tii waagi uu ku sameyn jiray midowgii badbaado quruntay uu ku sameyn jiray oo lacag badan kaga baxday hubkii kaga baxay lacagtiisi waxa soo dhan wuxuu rabaa inuu ka soo celiyo UN-ka inuu ku dhaho doorashada qabaya lacag uu siiyay waa inta weey doorashooyinka inta badan wan wafadka waxa maalgeliya waa AU-da UN-ka aduu qaramada midoobay baa lacag laga cunaa sida nimanka la yiraahdo Soomaaliland kale lacag kaga cunaan caalamka oo lacag balaayiin lagu qaata horta waxa uu ordayo waa intaas waxa ka indhasaabay hooyada walaashiisa iyo gabadha walaashiisa laas caana ka ooyeysa waxa ka indhasaabayna waa xoogaaga lacagtaayo sunuuda ninka hadduu lacag hadduu arko dhuunta inta leekaata iimaanka rabbi ka qaada haddii alla ku rooyahay waa isbedela asoo dhan bahal buu ekada bahal buu ekada hadduu lacag arko marka xoogaaga lacagtaa way horta waxa ka indhasaabay xoogaaga lacagta ahaana mid calfanayo uma eka shacab weynihii reer Puntland uu doorasho u qabanaya reer Boosaaso waa tashadeen reer bari waa tashaday maxaa sameynaa bali sida laas caana muuse looga saarayo baanu aduu bari yimaado ama doorashada sanduuqyada la soo aado baan uga saaraynaa bali caalamkii marka uu lacag ka qaadan lahaa soo arki mayaan tala fiican baa haysan reer bariyo tala fiican baad reer bariyo haysan reer nugaaleedna waa diyaar garoobeeno horta waxa isweydiin leh waxa uga bilaabay bari ma garanaysaa bari waxa uga bilaabay jileec bida shacabka waxaan leeyahay banaan bax salmiya oo aan dhig ku daadanayn oo aad wadooyinka istaagaysaan oo aad leedihiin doorasho ma rabno naga bax dad guba idmalihi haddii aan ku rooyo baxbar buriye idmalihi fidma abuur idmalihi ganacsigiina ku ciyaarin laakiin banaan bax salmiya oo aad bororkiina qaadanaysaan oo aad leedihiin dani doorasho maya dagaalka anaga lacag anaga ku arur ilaahu maanta yaa yiraahdo laas caano 1 milyan baan ku haynaa dagaalka galay yaa yiraahdo walaade war shacabka reer Puntland
lacag miska aruurina sanduuq lacag ka aruurina ma dhahna maryan baa haynaa dani oo ciidanka amar wallahi waa amraya haddaan maryan ka ku siinayna waa shaqaysta dani haddaan idhaahdo maryan kaas aan dani oo ku haynaa inta aruurina maanta ala qof haddaan hal doolar isku qorno oo dhahdo maryan baa meesha ku jira ee dani oo dagaal gal wallahi waa huba ciidanka inuu isma caboos leeymayo gaagu leey gaa u dhahaya lacag ma aruurina ciidanka kireysana dani qurux ciidanka ma kireysana lacag ma aruurina ila wuxuu boos ugu ordayo waa lacagta UN-ka inuu soo fasaxday taas ku yimaana reer Puntland taas ku yimaana haddii ay noo saaran tahay inaanu hal dollar aruurino oo aan wadani ciidanka naga kireyso aan dhahno ciidanka naga kireyso inaan dhahno waa samayn doonaa haddii shacabka reer Boosoodna tala haysan inaad ka hortagtaan reer Carmo waa reer Carmo waa ay xidhan Carmo iyo soo gudbinba Carmo ilaa habeen dambe buxur ilaa habeen dambe Carmo waa soo gudbinba oo aad hooyo kastaahi laamiga xirato oo tirada kaali jiir saas aad ku bogaadinayaa dani maaha shakhsi aan afgaranayna maaha waa daabad ilaahay cirka uga soo tuuray Puntland waxna sabab lama waa yahar way kunkaas shilinku caabuda shilinka ilaahay baan ku dhaartay shilinkaas caabuda maanta haddaan ilaahno malyan baan haynaaye oo aan aruurnay daniyo aan dagaal galno ku duulo Somaliland oo Muuse aan burcageyno wallahi wuu yeerayaa malyanka hadaan jeeb asaga hadaan jeeb ku gelin ma malyan ciidanka la siinaya ma asaga hadii jeebka loo gelinayo ciidanka uu naga kireenaya waa shaqaysti waa ninkaad ogeydeen ee xamar rabay inay gubato ee hubka la ka qaaday ee gacanta u gashay nimankii badbaado qurunta la baxay ee yiri dagaalama xamar guba afcad buu ku yiri farmaajo أو دور ص حقيقة على سو حصل بي حمر وحبة كذا والله هو صاروا والله بيوك شيء مي بالله الله ومرة راح أقول كوبيا هربري كديار جروبة داسنا هذا شدان ورقيه ويكوتشران ما حد داسنا اللي راح ورقة كوري دماها ورقيه ويكوتشران ساس أسي عبيسين هاد وعبيسين كهرتك عارم ماشي ليه هذا رجح كجحر أنت صاير لي هاي halgan kareer sool meel fiican u maraya waa la isku soo ciidamada wali soo gurmaya tiiduhu 100% weeye sir ciidanka ka sidaaya ma rabo waa meesha uu fiican u maraya reer laas caanood halgankooda waa wadaan ilaa xalay tobaneeye ka tilaabsadeen oo hadii la ku rooyahay ee cuneen oo wax cibaadaysteen xalay baa oran kara halgan dhagaxtuurka waa ka gudbay halgan hubaysan oo magaalada dhexdeeda abu noqday oo magaalada dhexdeeda ciidan ka dagaalamaya meel fiican marayaan Allah idin guuleeyo guul baan rajaynayaa شعب كهير بتلاقوا وحنا بالله روحي دمتي الله يقمضي ضيعات هاي الدنيا ونضع فير بدلان واخد داشدي ما دلغاتي عيب كما درجدي أنا لا دونيستي مثل قاعد دجال كلا قليا دمع الروريد ده أنا كما وناكسني سيدي دعوة قد لعبة دقاقة دلغافك إيا سمير دران تادا مركا نعب كنا لا درسني هاي دبع نجين كاجا مركو سجل ونودر رسني هاي دوب بكريم تادا دستور كل قرية شرعي قد مرتين تيسا طريقي سحنا iyo sunnada dacalka dhaafkooda dabeecadaha ku gaara iyo hadallada isdiidan dib markaanu ku fiirinay oo diirad kugu eegnay dirkii oday Ismaaniya matii doodi reer boqore daniyo una dhaaf reer Puntland waa ku daashaday